الله markuu abuuray aadamaha wuxuu u mudeeyay waqti iyo xilli ay ku sii nagaanayaan adduunka si ay u tarmaana wuxuu ka abuuray lab iyo dhadig wuxuuna u jideeyay inay lamaana noqdaan kadibna aadanuhu sidaasi ku tarmo laakiin waxa dhacday inay yimaadeen dad ka hor yimi qaacidadan rabbaaniga ah lana yimid ficil iyo dhaqan xilligaasi ugub ku ahaa aadamaha dhaqankan ayay ku mutaysteen caradii alle iyo in loo halaago qaab dad ka horeeyay aan loo halaagin haddaba maxay ahaayeen dadkan muxuu ahaa dhaqanka ay la yimaadeen kusoo dhawaada daawadayaal muuqaal aynu ku eegayno qisadii nabi luut calayhi salaam magacayga waa cali maxamed halkanna waa gob media intaynaan bilaabeen qisada kusoo biir janaalka nabi luut waxaa adeer u ah nabi ibraahim calayhi salaam abtirsigiisuna wuxuu noqonayaa luut ibnu haaraan ibnu azar waxaana dhalay nabi ibraahim walaalkiis haaraan luut calayhi salaam ayaa ku dhashay magaalada baabil ee waqooyiga dalka Ciraaq marka uu aabihii Haaraan u geeriyooday isaga oo yar waxa ka faal qaaday awowgii Azar waxayna isku meel ku wada noolaayeen adeerkiis nabi Ibraahim calayhi salaam Luut iyo nabi Ibraahim waxay ahaayeen kuwo markasta rafiiq iyo saaxiib isku ah aadna isku jecel markii nabi Ibraahim dabka lagu riday qofka kaliya ee rumeeyay wuxuu ahaa wiilku adeerka u yahay ee Luut calayhi salaam kadibna waxa rumeeyay xaaskiisii Saara nabi Ibraahim markuu uu dagaal iyo diidmo kala kulmay qoomkiisii waxa uu go'aansaday inuu ka hijroodo dhulka Baabil wuxuuna aaday dhulka Kancaan oo ah deegaanada maanta loo yaqaano Falastiin iyo Jordan waxaana sii raacay xaaskiisii Saara iyo wiilku adeerka u ahaa ee nabi Luut calayhi salaam nabi Ibraahim waxa uu degay Falastiin halkaasuna dacwadii iyo u yeeridii cibaadada alle ka sii waday muddo kadibna luut calayhi salaam ayuu alla ka dhigay nabi loo waxyooday waxaana loo diray in isaguna uu farinta alla gaarsiiyo qoom deganaa magaalo lagu magacaabo Sodom ama sida ay ahlu kitaabku u yaqaaniin Sodom iyo Asura Sodom waxay ku ooli jirtay daanta webiga Jordan dhinaca kalena waxay u dhaweyd xeebta Baxril Mayd waxay ahaayeen laba reer oo ood wadaag ah aadna isku dhexgalay dhulka ay deganaayeen wuxuu ahaa dhul alla u dhameystiray nimcooyinkiisa deegaan cagaaran oo doogu meel walba jiifo xoolahooda meel fog looma daaqgeyn jirin guriga hareerihiisa ayay cawska ka heli jireen waxay ahaayeen boqortooyo yar oo hoos tagta Sodom dadka deegaamadan ayaa ahaa dad aad u dhaqan xun ummadihii hore dhaqan aan lagu aqoon ayay caan ku ahaayeen ragga ayaa isku galmoon jiray iyaga oo la imaanaya liwaad ama waxa maanta caalamka looga yaqaano homosexuality ama khaniisnimada waxayna ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee ficilkaasi foosha xun la yimaada dhaqankan guracan ayaa dhexdooda aad ugu faafay ilaa darajo ay gaareen inay isugu faanaan banaankana ula soo baxaan suuqyada dhexdooda ayay raggu foolxumadaasi ku dhex samayn jireen iyada oo dadku u soo daawasho tag jireen waxa intaasi u sii dheerayd in dadka deegaankooda safarka ku soo mara sidoo kale ay ku sameyn jireen ficilkaasi aadka u xun dadkuna aad ay uga baqi jireen inay deegaanadooda safar ku maraan ama ay marti u noqdaan koox ayay isku raaci jireen iyaga oo ragga aan magaalada ka soo jeedin ama meel looga boqo aysan jirin inta guryahooda ugu tagaan ficilkaasi xun ku soo sameyn jireen waliba si xoog ah nabi luut calayhi salaam ayuu alle subxaanahu wa tacaala u doortay in uu qoomkaasi baadiyoobay lana yimid dhaqankan iyo ficilkan foosha xun uu u digo uguna yeero cibaadada alle iyo ka fogaanshaha foolxumadan ay ku jiraan nabi luut kama dhalan reer Sodom oo waxa uu ka yimid deegaankii Baabil ee Ciraaq balse eebbe amarkiisa ayaa loogu diray reer Sodom iyo dadkii ku deegaanka ahaa ayuu ku yiri ma waxaad la imaanaysaan fawaaxisho aysan la iman dad idinka horeeyay raggii ayaa damac ka raadinaysaan intaad dumarkii iska dhaafteen dad xadgudbay ayaa tihiin reer Sodom ma aysan dhageysan hadalkii iyo u yeeritaankii nabi luut balse waxay ugu jawaabeen adiga iyo ehelkaagaba magaalada waanu kaa saaraynaa waxayna sii ambaqaateen xumaantoodii wayna ka jeesteen fariintii adkayd ee uu xagga alle uga keenay waana isla sida caalamka maanta ka socota oo qofka cod dheer wax kaga shiga qolooyinka la yimaada dhaqan xumadaasi oo lagu tilmaamo qof cunsuri ah oo dadka dookooda ku diidaya nabi luut calayhi salaam waxa uu qabay haweeney aad u akhlaaq daran gaalnimada iyo inay diidda xaqa uu nabi luut ugu yeerayo waxa u sii dheerayd in markii guriga nabi luut calayhi salaam ay yimaadaan marti ay u soo sheegi jirtay raggii kooxda u socon jiray ee ragga intay guryahooda ugu dhacaan ficilkaasi xun ku soo sameyn jiray nabi luut calayhi salaam si walba oo wax ugu sheego waa ay ka diideen wayna ku jeesjeeseen waxaa rumeeyay oo kaliya dad yar oo ay ku jiraan labadiisii gabdhood xaaskiisiina gaaladii ayay ka mid noqotay mar kasta oo uu dadka uga digo cadaabka alle waxay ugu jawaabi jireen keen cadaabka aad noogu goodinayso sida alle subxaanahu wa tacaala ku sheegay aayadda 29aad ee suuradda Cankabuut markuu ku yiri nabi luut calayhi salaam ma waxaad la imaanaysaan ragga inaad damac ka raadisaan ummadana aad dariiqa u fariisataan si aad foolxumo ugu samaysaan ayay ugu jawaabeen haddii aad run sheegayso keen cadaabka alle culimada taariikhdu waxa ay sheegaan inay lahaayeen reer Sodom meel gole ah oo ay ku shiraan
halkaasi ayayna ku go'aamin jireen ficilada ay dadka masaafirka ah ku samaynayaan oo ahayd inay xoolahooda qaataan kadibna ku xadgudbaan oo ragga safarka ah foolxumo ay ula tagaan meesha ay ku shirayaan ayay sidoo kale ku samayn jireen ficilkoodii foosha xumaa iyada oo raggu ay u samayn jireen ficilkaasi si faan ah oo kooxba kooxda kale ay ugu faani jirtay iyaga oo isqaawinaya kadibna isku tegaya wuxuu ahaa dhaqan aan horay loogu arkin ummadihii ka horreeyey foolxumada ugu sii weyn ayaana ahayd in xilliyada bandhigyada iyo xafladaha ay leeyihiin ay raggu ficilkaasi ku samayn jireen si dhammaan dadka intiisa kale si ay u arkaan wuxuuna ahaa dhaqan ay aamineen inuu yahay wax lagu faano nebi luud calayhi salaam markii uu ka daalay wuxuu sheegidooda ayuu gurigiisii iska galay isaga oo alle baryaya wuxuuna yidhi allow iga badbaadi qoomkan fasahaadka badan ee xadgudbay alle wuu ka aqbalay ducadiisii wuxuuna u soo diray malaa'ig u sida ciqaab daran wuxuuna alle amray inta aysan halaagin in ay marka hore u tagaan nebi luud calayhi salaam una sheegaan fariinta uu alle soo faray iyo cadaabka ay u wadaan qoomkii loo diray sida ku soo aroortay aayadda 69aad ee suuradda huud markii ay malaa'igtu u timid nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu mooday dad marti u ah wuxuuna u diyaariyey neef loo ah oo la dubay markuu arkay inaysan cunayn ayuu la yaabay kadibna waxay ku dhaheen ha cabsan waxaan nahay malaa'ig loo soo diray xaggii qoomkii luud oo alle ayaana amray inaan halaag iyo ciqaabtooda marsiino nebi ibraahim calayhi salaam ayaa arrintaa aad uga murugooday kadibna malaa'igta ayaa ku tiri ibraahiimow arrintu waa amar alle reer luudna waxaa haleelaya cadaab aan ka noqosho lahayn kadibna waxay u jahaysteen dhankii suduum oo ay deganaayeen qoomkii loo diray nebi luud calayhi salaam malaa'igtii ayaa nebi luud u timi calayhi salaam iyaga oo leh suurad bini aadam waxay iska soo dhigeen wiilal dhallinyaro ah oo qurqurxoon waxayna yimaadeen gurigii nebi luud calayhi salaam nebi luud calayhi salaam markii uu arkay martidan u timid aad ayuu u murugooday wuxuuna ka baqay in xumaan loo geysto wuxuuna bilaabay inuu martidii soo dhoweeyo oo uu ku yidhaahdo nakaxeeya magaalada bannaankeeda ayaan idinku soorayaa intii uu la hadlayey ayay xaaskii sii inkaarnayd markiiba carartay oo kooxihii xumaanfalayaasha fariintii gaarsiis oo waxay ku tiri waxaa jooga guriga luud niman aanan weligay arag wax ka muuqaal iyo qaab wanaagsan kana wejiga qurxoon markiiba waxaa guriga luud calayhi salaam soo gaarayay koox ka mid ah kuwii ragga xumaanta u geysan jiray waxayna ku yidhaahdeen miyaanan kuu diidin inaad rag marti soorto u soo bixi ragga bannaanka iyaga oo u maleeyey meesha inay joogaan dad musaafir ah balse aan ogayn inay yihiin malaa'ig loo soo diray ciqaabkooda nebi luud calayhi salaam murugadii ayaa kusii siyaaday wuxuuna ku yidhi kuwani waa martidayda gabdhahayga ayaa jooga oo aan idinku meherinayaa iyaga ayaana laydiin banneeyey ee ha igu ceebaynina martidayda oo allihii idin abuurtay ka baqa miyaan qof wanaagsan idinku jirin iyaga oo jeesjeesaya ayay ku yidhaahdeen annagu gabdha ma rabno ragga bannaanka u soo saar markay sidaas yidhaahdeen ayuu nebi luud calayhi salaam intuu ooyey ku yidhi haddii aan awood lahaan lahaa waan idiin adeegsan lahaa si aan dulmigiinna u joojiyo markuu aad isku ciilay ayay malaa'igtii ku tiri luudow waxba ha cabsan annagu waxaan nahay malaa'ig uu alle soo diray waxaan u nimi in adiga iyo reerkaagaba badbaadino marka laga reebo xaaskaaga oo kuwa xun ka mid noqotay kuwaana annaga cadaab daran irka uga keenayna sida uu allena amray kadibna malaa'igtii ayaa furtay albaabkii kooxdii xumaanta raadinaysay ayaa farxay oo u soo cararay xaggii malaa'igta oo suurad insaan leh ibnu kathiir waxa uu yidhi marka ay u soo dhowaadaan ayay malaa'igtii wejiga ku dhufatay oo wejigoodii isku dhegay oo indhihii araggii ka tegey waxayna tageen iyaga oo qaylinaya oo derbiyada ku taagtaagsanaya oo leh gurigii luud sixiroolayaal ayaa jooga sidaasi ayayna ku arag oo suurad beeleen malaa'igtii ayaa nebi luud ku yidhi kooxdan ballankoodu waa subaxdii aroorta hore ayaa alla halaagayaa ee reerkaaga caawa guuree oo magaalada ka saar sidaasi ayuuna nebi luud magaalada uga baxay habeenkaasi isaga oo ay la socdaan labadiisii gabdhood xaaskiisiina waa uu ka tegey maadaama sidaasi la amray markii ay magaalada ka dhex baxeen oo ay ka gudbeen deegaankii sudum iyo camuura ayuu alle subxaanahu wa tacaala amray in malaa'igtii ay halaagii iyo ciqaabtii ay ku fuliyaan subaxii markii la gaaray ayuu haleelay ciqaabkii alle aayadda 82 ee suuradda huud alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku sheegay markii la gaaray wakhtigii loo qabtay in dhulka lala rogay kadibna roob dhagax kulul wata uu dushooda kusoo da'ay ibnu kathiir markuu aayaddan fasirayo kitaabkiisa wuxuu ku sheegay in jibriil calayhi salaam uu dhulka ka fujiyey dhammaan deegaankii ay deganaayeen iyaga oo guryahoodii ku dhex jira kadibna uu cirka u dhoweeyey waxaana kusoo da'ay roob dhagax kulul oo dab wata kaasi oo qof walba lagu aadiyey dhagax kulul oo uu magaciisu ku qoran yahay wuxuuna ka gelayay madaxa oo ka qaadaya nafta sidaasi ayuu ku halaagay allah subxaanahu wa tacaala qoomkii suduun iyo camuura ee foolxumada iyo ficilada aadka u xun la yimid intaasina ay usii dheerayd gaalnimo iyo shirki culimada taariikhda ayaa sheega in wixii intaasi ka dambeeyey nebi luud calayhi salaam iyo labadiisii gabdhood ay u hijroodeen dhulka reer falastiin oo ahayd halkay uga yimaadeen nebi ibraahim calayhi salaam halkaasi ayay luud iyo labadiisii gabdhood ku cibaadaysan jireen ilaa geeridu u timid buur yar oo ku taalla magaalada belinaciim ee falastiin ayaana la sheegay inay ku yaalaan qabriyada nebi luud calayhi salaam iyo labadiisii gabdhood alle ayaana ku cilmi leh sida saxda ah أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما